بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dagaalyahanada Xamaas ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay tageen goobaha jaalaha ee ciidanka Israa'iil ay kaga sugan yihiin marayka Gaza halkaasi oo laga soo saaray saddex ka mid ah meydadkii maxaabiista Israa'iiliinta ee la weysana mid ka mid ah wuxuu ahaa taliyihii qaybta Gaza ee ciidamada Israa'iil sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa iyadoo ay soo baxayaan warar kala duwan oo la xiriira in Israa'iil isku diyaarinayso duulaan ay ku qaado dalkaasi Lebanon ayaa goor dhaweyto ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu ku hanjabay in dagaal ay ku qaadi doonaan Hezbollah iyo Xuutiyiinta xiisada ayaa lagu soo waramayaa inay cirka ku shareeran tahay Ruushka doqeymo culus ayuu ka geystay Ukraine dhimashada dhaawac ayaa la soo warinayaa booliiska waddanka Britain war cusub ayay ka soo saareen weerar loo adeegsaday toorey oo xalay ka dhacay maxada tareenada laga raaco oo ku taal gobolka Cambridgeshire ee waddankani Britain dhammaan wararkan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirna iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn warbaahinta rasmiga Israa'iil ayaa sheegtay in xukuumadda Israa'iil ay ansixisay in ururka Xamaas ay la soo gasho laanqeyrta cas khadka yelowga ah si looga baaro meydadka askar maxaabiista oo halkaasi ku maqnayd sida laga soo xiganayo kooxaha laanqeyrta cas oo tegay bariga Khan Younis oo baaritaan ku sameeyey meydadka maxaabiista iyo dowladda Axranood wargeyska la yiraahdo ayaa ku ramayeen meydkii taliyihii koonfurta ee qaybta Gaza xukumaysay ciidanka Israa'iil Asaf Hamami oo ay ururka Xamaas qabsadeen 7 Oktoobar iyo laba kale ayaa meydkooda la helay sida laga soo xiganayo wargeyska iyo dowladda Axranood meelahaasi ay ururka Xamaas ka soo qufeen meydadka ayaa horey waxa u baaray ciidamada Israa'iil wax ay ka heleen lama arko oo meydada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa digniin ku bixiyay in ururka Hezbollah ay raadinayaan inay dib isu hubayaan Israa'iilna xaq ayay u yeelan doontaa inay nafteeda difaacdo waa sida hadalku dhigay bilowga kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay Israa'iil in ay tallaabo qaadayso haddii muhiim noqoto haddii Lebanon ay tallaabooyin qaadi weydo ay hubka uga dhigayso ururka Hezbollah ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa uu sheegay waxaan filaynaa xukuumadda Lebanon inay meel mariso heshiisyadii la galay ee hubka looga dhigay ururka Xamaas hase ahaatee waxaa cad inaan anagu xaq u yeelan doono buu yiri inaan nafteena difaacno anagoo isticmaalayna xeerarkii xabad joojinta Netanyahu ayaa u sheegay kulan ay golaha wasiirada lahaayeen oo toddobaadlaha waxaa sidoo kale uu ka baarandegayaa in Xuutiyiinta waddanka Yemen ay khatar weyn ku yihiin waddanka Israa'iil wuxuuna sheegay wax walba ayaan sameynaynaa oo aan ururkaasi xukunka uga tuurayno dhanka kale sarkaal Israa'iili ayaa xaqiijiyay in ay jiraan qiimeyn ay sameysay Israa'iil oo ah in ururka Hezbollah ay bilowday inay dib awoodeeda ula soo noqoto isla markaana ku guuleysatay inay hub fara badan iyo gantaalo dhanka Suuriya ka soo gudbisay dhinaca kale janaalka 12 ayaa laga soo xiganayaa sarkaal Israa'iili oo leh oo ku qiyaasaya in ururka Hezbollah ay dib u soo custeen awoodoodii kuna guuleysteen inay boqolaal gantaalo waddanka Suuriya ka soo geliyeen ururka Xamaas ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka in ay ku soo rogto Israa'iil maadaama ay xadgudub ku sameynayso xabad joojintii marinka Gaza taa beddelkeedii Israa'iil ayaa eedeymo isdaba joog jeedinaysa oo ku eedeynaysa in xubnaha ay bilaqaysanayaan ururka Xamaas ka tirsan gargaarka iyadoo ku nuuxnuuxsatay in aynan wax gargaara gaarin oo ay hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah ay ka marqaati kaceen xogayaha guud ee arrimaha caafimaadka ee marinka Gaza Dr. Munir Al-Barsh ayaa dabool ka qaaday in ciidanka Israa'iil ay bambooyin ku qariyeen qalabka ay caruurta ku ciyaaraan si ay caruurta ay ugu qaraxdo waxaana la sheegay caruur cunug halkaasi gaaray ayaa waxa uu arkay bahal ay caruurta ku ciyaareen oo qurxoon kadibna wajigiisa ku qarxay
wararka caalamkana waxaa ka mid ah ruushka ayaa weeraro isdaba jooga oo gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee droniska loo yaqaano ku wada meelo kala duwan oo ka mid ah waddanka Ukraine waxaana halkaas ku dhintay dad waxaana sidoo kale waxyeello ay gaartay goobaha korontada laga dhaliyo oo dad badan ayaa mugdi ku hooyanaya sida saraakiisha Ukraine ay sheegayaan madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay in weerarada ruushka ay muujinayaan in ruushku ku talagashan yahay in uu waxyeello gaarsiiyo dadka rayidka ah oo dagaalka hadda 4 sanadood uu ku dhow yahay waddanka Ukraine ayaa ku eedeynaya ruushka inuu si olakac u bartilmaameedsanayo goobaha korontada si uu dadka niyadda uga jabiyo ayuu ku eedeeyay waddanka ruushka madaxweynaha waddanka Ukraine booliiska waddanka Britain ayaa sheegay in weerarkii midida la adeegsaday ee tareen oo ay wax ku noqdeen 11 qof oo isbitaalka la dhigay ayaa lagu sheegay inuunan ahayn fal argagixiso waxay ahaayeen baa la yidhi 2 nin oo u dhashay waddanka Britain oo hadda gacanta lagu hayo booliiska qaybta u qaabilsan dagaalanka argagixisada ayaa gacan ka geystay baaritaanka hordhiciisi kadib markii dad badan lagu tuureeyay tareen marayay bariga England ee waddanka Britain marxaladan la jooga ayuu yiri booliisku ma jiraan cid lagu tilmaami karo inay fal argagixiso ku lahayd John Loveless oo ah taliyaha booliiska gaadiidka dadweynaha ayaa u sheegay warbaahinta in 2 nin la xiray looga shaki qabo inay geysteen isku day dil nin waxaa lagu sheegay 32 jir waxaana uu yahay waliiri nin u dhashay waddanka Britain oo madow ah midka kalena waxaa lagu sheegay 35 jir asagana waa nin madow ah oo ka soo jeeda dadka jasiiradaha Caribbean ka yimaada sida uu taliyaha booliisku sheegay 2 nin ayaa ku dhashay waddanka Britain wali waxaa socota shaqada lagu abuurayo ama laga daba tegayo xaaladda keentay iyo sababaha keenay in weerarkan uu dhaco munaasab maaha buu yiri in qiyaas iyo ku turkataan la isu sheego inta aan baaritaanka wadno iyo booliisku soo gabagabeeyeen bayaankooda bilowna war degdeg ah oo hadda soo dhacay hadda waxaynu ka hadlaynay ciidanka Israa'iil oo goobaha ku sugnaayeen intii ay waayeen meydadkoodii Xamaas ay gashay iyadoo la socota dhaqayda cas halkaas laga soo saaray taliyihii qaybta koonfureed ee Gaza iyo 2 qof oo kale laakiin hadda war baa soo dhacay Maxamed warkan waa war runtii dhiila xabaarsan sida hadda durbaba la sheegayo telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu leeyahay waxaan helnay ilo wareed dhexdhexaadiyaasha dhankooda ah oo la xiriira in Xamaas iyo Israa'iil si loo sugo heshiiska xabad joojinta iyo arrimaha bixitaanka xubno Xamaas ka tirsan oo ku sugan meelaha qadka jaalaha oo Israa'iil ay ku sugan tahay ilo wareed waxay sheegayaan in dadaallo ujeedadu ay tahay in la xaqiijiyo bixitaan nabdoon oo dagaalamayaasha iska caabinta si looga fogaado wax kasta oo iska horimaad ah oo ay la kulmaan ciidamada Israa'iil isla markaasna hindisaha la soo jeediyay la ogolaado in dagaalamayaashu ay ka baxaan iyagoo wata ama lagu qaadayo gaadiidka laanqayrta cas iyadoo loo marayo wadooyin gaar ah ama loo calaamadeynayo wadooyin gaar ah dhexdhexaadiyaashu waxay xaqiijiyeen inay heleen ogolaanshaha Xamaas ee qorshaha bixitaanka dagaalamayaasha go'doonsan isla markaasna hadda la sugayo ogolaanshaha Israa'iil arrintan Maxamed waxay ku soo aadaysaa iyadoo xalay wararka iyaga la shalay ku jirtay in mas'uuliyiin ka tirsan ururka Xamaas oo qaliil la xayaa oo hogaaminaya ay la shireen wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga inkastoo Xamaas ay sheegtay in xilligaas ay kala hadashay Turkiga in la joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah xabad joojinta Israa'iil ay wado laakiin waxba isku soo beegmaya goobtan hadda la leeyahay dagaalamayaasha ka baxaan dhulka hoostiisa ee jaalaha ah waxaba la filayay Israa'iil inay ka baxdo iyadoo aagaas oo ay tagto dhanka guduudka marka hadda ma Falastiiniinta baxaysa warkan hadda ayuu soo baxay laakiin waxaan ku sheegayaa erayo badan oo waxaa jira aanan laga filaynin ururka Xamaas oo hadda warkan ku xusan marinka Gaza ururka Xamaas meel ay go'doon uga tahay ma jirto meel walba khiyaarkeeda ayay ku joogtaa Israa'iil waxay ka caabinaysay dhulkan loo calaamadeeyay ee khadka huruudka waxaa kula sugan dagaalyahano ururka Xamaas oo aan la arkayno dhulka hoostiisa ah
cabsi weyn ayayna ka qabtay. ereyga go'doona waa erey bixinta marka saxaafadda la isticmaalayo ereyada xataa waa lasugu hiiliyaa. Israa'iil waxaan ognahay inay dagaal ku jabtay, Israa'iilna in dagaalka marinka Gaza ay ku gashay, ururka Xamaas ku gashay ay wax ka qaadi weysay. Hadda waxa weeye dhexdhexaadin iyo wada hadal ayaa lagu baxayaa. Wararkan soo baxaya oo dhanna sida ereyada ay u yihiin marka laga gudbo waxa weeye ururka Xamaas waxa ay sameynayaan way og yihiin, gorgortanka way ku fiican yihiin, laakiin xaaladda hadda jirta marka la fiiriyo iyo dadka samafalka laga hortaagan yahay iyo Israa'iil saskan iyo cabsidan haysa iyo ururka Xamaas sida ay uga baqayso, waxaa muuqata in dhexdhexaadiyaasha weliba dhinaca Turkiga in uu macluumaad mataqaanaa xasaasi ah uu ogsoon yahay oo la xiriira xabad joojintii sidii dib loo yeegleyn lahaa maadaama warbixin sugan laga siiyey. dhinaca kale lafagurayaashu waxay sheegayaan xadgudubka ay Israa'iil ku sameynayso xabad joojinta marinka Gaza waa hal dhinac weeye. Xamaas xadgudub ma samayso sida Israa'iil oo kale, sababtoo ah waxaad muuqata in xadgudubyada siday u dhacayaan ay yihiin kuwo dhinac kaliya u janjeera, sida uu hadalka u dhigayo Muhanad Salamuun oo ah professor dhiga arrimaha daraasaadka amniga. wuxuuna leeyahay mar hore ayay maxaabiistii nololeed gudbiyeen, waxayna isku dayayaan inay meydadkii hadda raadiyaan. waxa kaliya oo rajada laga qabaa waxay tahay in wejiga labaad loo gudbo, waxayna ku xiran tahay wadanka Mareykanka. haddii dowladda Mareykanka ay doonaysa buu leeyahay ninkan khabiirka ah in ay meel mariso qaybta labaad ee heshiiska, wejiga labaad wuu hirgelayaa. haddii laakiin dowladda Mareykanka ay aamusto oo ay Netanyahu la safato, nasiib darro ayuu yiri, waxaan arkaynaa in weerarada ay dib u bilowdaan. waa gartay dib aan ugu laabana arrintan bixitaanka dagaalamayaasha Xamaas ee aagga jaalaha, inkastoo Xamaas ilaa hadda war aan ka hayn oo sidaas sheegtay warkan uu yahay war hadda soo dhacay, laakiin ama ka dhigna inuu warkani jiro. Israa'iil intii xabajoojinta ay la gaaray 10 Oktoobar dadka la dilay 200 ay hadda marayaan. marka haddii iyadoo ay dalbanayso oo ay leedahay meesha ciidankeena ku sugan yihiin dhulka hoostiisa dagaalamayaashii ku jiraan Xamaas, wax walba ay soo jeedisay miyaa la qaadanaya? miyaysan jirin dood ah in la yiraahdo adiga laftigeena xadgudubkaas baad wadaan, maxaabiistii intii noolad waa la gudbiyey, intii dhimanayd hadda intii ugu dambeysay maanta waynu u jeednaa 3 baa meydadkoodii la wareejiyey. dhanka Israa'iil marka haddii aysan waxba ka soconayn, dhanka Xamaas ma ka socon doontaa arrintan? inkastoo warbixintu ay leedahay way aqbashay Xamaas, laakiin weli war kama hayno. khabiirada u dhuundaleela dagaalka sida u dhacay iyo xaalka siduu yahay, askarta Israa'iil ee ku sugan khadka waxa weeye khalkhal xoog leh ayay ku jiraan. Israa'iil dagaalkii 2 sanadood ay ku jirtay iyo darsiga ay barteen waxay tahay in meel kamid ah marinka Gaza oo amaan ahayn, dhulkii ay sheegtaan waa qabsadeen ay dhigi jireen oo dhan waa lagu leyn jiray. haddana goobahan ay joogaan waxa weeye haddii ay Xamaas dhulka hoostiisa ku jirto ama meelo kale joogto, weli cabsidii ayaa jirta. xabad joojintan iyo waxaan la wado maaha mid dadka Falastiiniinta loogu danaynayo, waa mid la rabo Israa'iil in laga badbaadiyo, in ay si cad u caddaato inay meesha ku jabtay. tan kale dowladda Mareykanka ayay tahay in ay fuliso ballanadii ay qaaday oo ahaa inay damiin ka tahay Israa'iil. laakiin dhinaca Falastiiniinta marka la fiiriyo, damiinkooda markuu la hadlo oo wax u sheego waxa weeye nuxur ayuu ka keenayaa macne, laakiin dhinaca Israa'iil Mareykanka waxba ka keeni maayo. dhinaca Mareykankana Israa'iil aan halka ku celiyo, Mareykanka Israa'iil waxba ka keeni maayo. waxaana Xamaas waa ka dheregsan tahay sida loo gorgortamay yaqaanaan. dagaalkan wiigii labaad iyadoo lagu jiro ayay yiraahdeen Israa'iil ciidankeedu waa sida caruur oo kale. haddana waxaa muuqata in wararkan cusub oo soo baxaya ay kulligood muujinayaan Israa'iil in xaalku uu ku adag yahay. dagaalka haddii lagu noqdana waxa weeye xabad joojinta ayagaa jabinaya. haddii hadda ay dalbadeen in laga saaro dagaalyahanada ku jira meelaha ku dhuumanaya, haddana waa kusoo noqon karaan, sababtoo ah 500 oo kilomitir oo shabakado dhulka hoostiisa ayaa ururka Xamaas u qodan. hadday soo baxaan haddana hoostay kasoo galayaan waa soo noqonayaan. tan kale
waxaa hadda socda waxa weeye wejigii labaad ayaa la rabaa in loo gudbo gargaarka ayaa la rabaa in ooda laga qaado waxyaabo fara badan ayay mudnaanta siinaysaa ururka xamaas waxaan sugaynaa meesha ku dhamaato arrintan laakiin waxaan kuu sheegayaa arrintaani cid kasta oo maqasha ayaa la yaabtay waayahay dabcan wixii kusoo kordha barnaamijyada dambe ayaan usoo gudbin doonaa daawadayaasha maxamed arrintan digniintan iyo goodiskan kasoo yeeraya netanyahu ee xisbullah iyo xuutiyiinta ku wajahan maxaa lagu fasiray xuutiyiinta lama cabsiin karo lama cabsi gelin karo netanyahuna waxay ka maqlayaan lama arko xabad joojinta hadda xuutiyiinta waxay u qaateen israa'iil ayaa xabad joojintii yeeshay haddii ay dagaal ku qaadho xuutiyiinta meeshii ayay kasoo bilaabayaan inkasta oo madax iyo golihii mataqaanaa ra-iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada dadka tirsanaa la dilay oo xataa generaalka ciidamada la dilay waxaas xuutiyiinta waxa uma arkaan dhinacan lubnaanna macluumaadkan soo baxaya oo israa'iil ay qirayso in xamaas ururka xisbullah uu soo kabanayo dib isu soo abaabulayo waxa weeye macluumaadkooda waxay ku salaynaya iyagaa jirta laakiin markii horeba xisbullah weeraradii gaadmada ahaa wax waa lagu gaarsiiyey ilo badanna waxay qabaan in ay mar horeba soo kabatay oo awooddeeda ay dhan tahay hubna aan laga dhigi karaynin waxa uu netanyahu sheegayo in hubka laga dhigo xisbullah oo dowladda lubnaan ka dhigto waxaa ay u arkeen dadka reer lubnaan inay fidno tahay oo la rabaa in laisku diro lubnaaniinta dhexdooda laakiin qaabka hadda wax u socdaan cidda xabad joojinta ku xadgudubta oo 2,000 oo goor ka badan xadgudubka samaysa waa israa'iil maraykanka iyo faransiiska ayaa kubadda waxay ku jirtaa xeradooda oo laga rabaa in israa'iil joojiso weerarada ay qaadayso hanjabaadda uu jeedinayo xisbullah laguma cabsi gelin karo waxaana muuqata sida khabiirada hadal ku dhigayaan in dagaal uu dhacaa laga yaabaa haddii israa'iil ay joojin weyso xadgudubka tan kale dowladda lubnaan inkasta oo ay soo saartay qaraar ay hubka uga dhigayso ururka xisbullah haddana qaraarkii wuxuu noqday mid aan waxtar lahayn sababtoo awood iyo karti midna ma laha ay hubka uga dhigto waayahay bal markan aynu eegno war kale oo degdeg ah dalka Belgium wasiirka gaashaandhigga Theo Franken ayaa waxa uu sheegayaa in baaritaan lagu wado diyaarad drone ah oo lagu arkay iyadoo dul heehaabaysa mid ka mid ah saldhigyada military ee halkaasi ku yaal oo weliba la sheegay in nuclear uu yaalo dabcan NATO iyo wadamada xulafada la ah Mareykanka ayaa halkaasi u yaal nuclearka ilaa iyo haddana war rasmi ah lama soo saarin oo ku aadan baaritaankaasi laakiin warkan waa war cusub waxaana arrintan ay kusoo aadaysay iyadoo dhowrkii maalmood ama dhowrkii toddobaad la soo dhaafay garoomada diyaaradaha ee dhowr wadan oo ku yaala Yurub lagu arkay diyaarado drone oo dul heehaabaya wixii kusoo kordhay arrimahaasna barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii aan la idmo maxamed Pokrovsky Ukraine waxaa la leeyahay ciidamadeedii hadda waxay bilaabeen inay is dhiibaan Putin wuxuu leeyahay haddiina is dhiibin halis baad gelaysaan ilaa ciidamo dhowr boqol ayaa meeshaas ku sugan baa la leeyahay magaaladana waxaa la yidhi haddii gacanta lagu dhigo waxay u muuqataa jug weyn oo soo gaari doonta Ukraine inkastoo hadda madaxweynaha Ukraine war soo dhacay uu leeyahay Jarmalku waxayna siiyaan nidaamka difaaca Patriot la yiraahdo oo cusub oo hor leh laakiin magaaladan Pokrovsky la yiraahdo haddii gacanta lagu dhigo oo Ruushka uu qabsado maxay ka macno tahay magaalada waa magaalo istiraatiiji weeye waxay kasoo gudbayaan webiga haddii kasoo gudbaana waxa weeye wadooyinkii tegaya caasimadda iyo meelaha kale ee muhiimka ah ayaa ruushka u suuroobaysa inay go'doomiyaan xeebaha Odessa ay ka mid tahay waxaana dhacaysa in xukuumadda Ukraine ay halis weyn gasho khabiirada oo dhan oo ka hadlaya arrintan ayaa waxay leeyihiin Ukraine dagaalkeeda wuxuu marayaa point of no return wax la yiraahdo buqcad aan laga soo noqon karin dagaalka wuxuu gaaray heer wax kasta oo loo sameeyo Ukraine iyo wax walba la siiyo ma soo noqon karaan sababtoo ah askartii khibradda lahayd iyo waayaaraga ahayd waxay dhinteen wax dhintay iyo wax dhaawaca dadka hadda safka hore jooga dad khibrad badan lamaha waxaana muuqata dagaalka marka dambeysa in ruushka uu kaashanayo farsamooyin cusub dantaalo guuxooda ka dheereeya diyaarada drones oo fara badan wadamadii reer galbeedka ballan qaaday inay difaacaan
balankii waa ku adkaaday sababtoo ah waxa weeye ruushka hanjabaad afka ah waa ku gaban waaye wixii agab ay meesha geeyeenna waxa ay noqdeen wax aanan hor istaagi karaynin gantaaladan guuxooda ka dheereeya iyo diyaaradahan droniska isqarxinaya